wuxuu ahaa anagu shirkan kamaynu qayb gelin dowladeeda way qaadacday maadaama ay mowqifkeeda helin laakiin mowqifka Soomaaliya damaanu lobbying uu sameynay separation group madaxweynihii waa la kulnay farmaajana waxaan kala hadalnay deeqaha sidii loo qaybsan lahaa waxaan kala hadalnay sidii dagaalka loo joojin lahaa waxaan kala hadalnay sidii jawi wanaagsan oo lagu bilaabi lahaa waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaalidu ay wadadii lagu jabay laga leexin lahaa oo loo horseedi lahaa wada wanaagsan oo nabad u keena si aan gacan uga geysan lahayn xaggooda anagu waa dhisanahay waxaan rimaas intii dhan waan is afkaran aad iyo aad waan isla fakaran arrinta wada hadallada xilli go'an miyaa la qabtay oo aad kulmi doontaan may waxaan ku heshiinay si dhaqso ah kick-off lagu sameeyo la bilaabo aan ku heshiinay si dhaqso ah arrinta dagaalada tukaraq ee Somaliland iyo Puntland masal soo qaaday madaxweyne farmaajo arrintaas waan isla soo qaadnay anigu waan ku eedeeyay waxaan idhi arrintan haddaad gacan ku leena adaa dhiirigeliyey waan ku tisaabinaa uu ka dhaartay waana rumaysanay arrintaas in sidii loo qaboojin lahaa inuu roolkeeda ciyaaro maadaama dee Garowe iyo markaasi Boosaaso ay ka tirtay Soomaaliya aanu dal kale gaar ahayn anaguna sheegnaa markasta diyaar u ahayn nabad horena qalaad nooga dhixin deegaankaas aan jaarka nahay wax badan wadaagno wanaagooda jecelahay horumarka gaarnay magaalooyinkoodana jecelahay waan ka raarinay isku aragti baan ka noqonay arrinta hadda shirka dib ugu laabana Faysal shirkan arrimaha Soomaaliya ayaa looga hadlayay haddii Somaliland ay diiday maxaa keenay adigu inaad timaadaan anaga waxa waajib anaga saaran Soomaaliya dawladeeda anaga ku taageeray inay tegin maadaama aan mowqifkeedii la siinin dalku Soomaaliya haddii 5 noqdaan iyo 6 noqdaan wax naga waa mid in equal footing oo wal fariisanay ahayd haddii tii la waayay waa ku taageeray inay tegin laakiin inaan aanu tabagalo oo xaqiiqo doono anagoo xisbi macaarida oo xil naga saaran yahay cali khaatuma ah xil ka saaran yahay hadna wada noo socdaan taasaan ku goosana laakiin dhaqaalihii la bixinayay iyo wixii la ballan qaaday magaca Soomaali baa la sheegay Soomaaliya mar laba xusin waa ku jirnaa Soomaaliya waa ku jirnaa waa waxaan wada leenahay saan u qaybsan lahayn taladeena gelin hadayna marka farmaajo ma ka wada hadasheen arrintaas madaxweynaha waan isla hadalnay waan isla meel dhignay waxba isla meel adigu waxaan ogahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa gudoomiye u tahay u cid dawladdu waxa ku hadlaysid oo dhan ma isku raacsantiin dawladda iyo common ground baan leenahay anagu meelana waan ku kala duwan issues oo policy platformka kala jaada laakiin qaranimada Soomaaliya xuquuqdeeda iyo ilaalisteeda isku mid baan oo ma santa